بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada mar kale ee barnaamijkii caafimaadka oo caawa kale habeen walba idin kaga yimaada magaalada Nairobi waxaadna ka daawanaysaan telefishinka Somali Cable habeen walba caawa kale waxay nagala qayb galay dhakhtarka caanka Dr. Ali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uur ku jirta dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa isbitaal uu ku leeyahay xaafadda Soomaalidu ee degtay Isli gaar ahaan magaalada Nairobi waxaana lagu magacaabaa International Health Center ka soo horjeedka Hotel Moonlight haddii ay bakaraal noqdo caawa waxaan uga hadlaynaa cudurrada ku dhaca kaliyaha balse intaan u guda gelin doctor ku soo dhaw barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim Abdullahi aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo Somali Cable shaqaalaheeda oo dhan iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaanba waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin fursadan wanaagsan aad nasiinaysaan marka xigta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba inaan iraahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qaasatan reer Kenya oo waqti xaadir aan la joogo ayaan rabaa si qaas ah inaan u salaamo aan iraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum salaam waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh warajeenaya inay ka gudoomeen salaantaasi daawadayaal waxaan idin xasuusinaynaa in isbitaalka International Health Center uu dhawaan bilaabi doono in habeen iyo maalin uu shaqeyn doono 24 saac hadii ay bakaraal noqdo isbitaalka waxa lagu soo kordhiyay qalabyo casri ah oo ay ka mid yihiin sariiro iyo qalabyo kale oo laga keenay wadanka Jarmalka Dr. Ali Mucu Aweys ayaana halkan ka howlgalaya oo aad uga barateen inuu ka howlgali jiray wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka iminka waxaad ku soo dhawaataan qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta Dr. Ali Mucu Aweys International Health Center ama iminka waxaad kala xiriiri kartaan oo si toos ah u soo wici kartaan Dr. Ali Mucu Aweys bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Ali Mucu Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Isli gaar ahaan xaafadda 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Isli xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Ali baa u jooga ee hamoogan Dr. Ali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Ali Mucu Aweys Dr. Ali Mucu Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaallo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaga muuqda waa hagaag daawadayaal qaybihii hore barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysaan waxaana ay nagala qayb galaya sidaan qaybtii ugu horeysay barnaamijka aan kugu sheegnay dhakhtarka caanka Dr. Ali Mucu Aweys oo habeen walba caawo kale nagala qayb gala waxaana wareysiga aan ku qaadaynaa isbitaalka uu ku leeyahay xaafadda Soomaalidu ee degtay Isli ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad caawa hadii bakaraal noqdo barnaamijkana waxaan uga hadlaynaa cudurrada ku dhaca kaliyaha doctor waxaan ku weydiinayaa imise cudur ayaa ku dhaca kaliyaha bismillaahir rahmaanir rahiim Abdullahi aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa markaan aan dib ugu soo noqdo su'aashaada kaliyaha cudurro badan ayaa ku dhici kara qaar lagu dhashaa jira qaar adiga intaad nooshahay ugu dhici karaa jira qaar waxaa jira mataqaanaa cudurro kale oo ay kugu dhici karaan keena marka tan ugu fudud markaan sheego waxaa jira cudur maaragtay infection ah oo kaliyaha gali kara oo la yiraahdo pyelonephritis kaas oo mataqaanaa inta qabow ka galo kaliyaha ka galo ayuu dhibaato ku gaarsiinayaa markaas ka bacdi kaadada ku gubaysa kaadada markay ku gubto dhakhtar oo cararto ayaa la arki karaa inta la fiiriyo haddii aadan u tagin dhakhtar pyelonephritis kaas uu kugu dhaco aadan dhakhtar u tagin oo iska indhiga tirto waxaa dhacaysa maaragtay qandho inay ku qabato oo aad jaraynayso marka aad jarayso macnaheedu waxa weeyaan kaliba dhimanaysa oo socota wax adiga
gudaha ku jira ayaa dhimanaya qaar adiga ka mid ah macnaheedu waxa weeye kelidii baa dhimanaysa way shuuqaysaa shaqadii bay gabaysaa way joojinaysaa markii shaqada ay gabto ay joogsato ta kale u dhiibaysaa marka tii kale haddana ay shaqo qabsanaysaa oo meesha waa lagu cunayaa iyadana marka macnaheedu saas waaye haddii aad isku aragto in mataqaanaa kaadida ku gubayso ama aad qabow intuu keliya kaa galo oo dhinacyada ku xanuunaan sida u dhaqsaa badan dhakhtar u tag haddii aad dhakhtarka u tagto adigaa arki doono wax badan baa iska kaa bedelaya oo dawo fiican baad helaysaa ilaahay hadduu soo dejiyo dawo allah soo dejiyaan dhahaynaa mar kastaba dawo fiican baad helaysaa markii aan taasu ka baxo cabdulaahiyow aan sii socdo waxaa jira cudur maaragti ee caruurta uu u badan yahay laakiin qof kastoo weyn xataa ku dhaca waxaa quunka aan u naqaano quun xanuunka waxaa la yidhaahdo dhuunta ay xanuunaysa quun baa ay haya ma cuni karo wax ma laqi karo markaad leedahay markuu soo noqnoqdo wuxuu sameynayaa cudur la yidhaahdo rheumatic fever rheumatic feverka markuu sameeyo waxa uu degalayaa marka ugu horeyso keliyaha markii uu dhuunta ka baxo keliyahu dhibaato gaarsiinaya kelidaas markay dhibaato gaarto waxaa la yidhaahdaa minimal change glomerulonephritis waxa la yidhaahdo ayaa imaanaya glomerulonephritis haddii uu kaas yimaado macnaheedu waxa waaye difaaca jirkaaga ayaa cilad yeeshay ciladaas oo kelida burburinaysa baabi'inaysa waxaa lagu garan karaa marka keliya xanuun dhuun xanuun badan iyo kaadadii ee ku dhibaysa marka kaadada la baaro waxaa la arkaya brotein wax la yidhahdo badan baa ku jira iyo dhiig baa soo raacaya kelida taas ayaa marka hore lagu garanayaa marka dhiigag laga qaadana waa dee wax cad baa la helayaa oo cad haddii aad hesho dhakhtar aqoontiisa leh waa marka labaad kan ee cudurka kugu dhici kara marka saddexaad waxaa jira cudur keena markaad dhiigkar aad qabto oo dhiigkarka si fiican aan lagaaga daweynin ama aad qabto sokor oo aan si fiican lagaaga daweynin keliyahay cilad samaynaysaa oo keliyada haday dhinac samayso waxaa kuu imaanaya wax la yidhaahdo mataqaanaa wax la yidhaahdo wax la yidhaahdo pyelonephritis-kaas uu ka mid yahay laakiin waxaa la yidhaahdaa glomerulonephritis-ka laftigiisa ayaa ku imaanaya marka sokorta markii ay dhacdo polyneuropathy wax la yidhaahdo iyo mataqaana angiopathy wax la yidhaahdo ayaa ku imaanaya markuu kaasu yimaado kelidou cilad gaarsinaya kelida shaqadeedii bay gabaysaa dad badanoo waxaa jira hadda dhiigkarka ama sokorta uu keeniyo dhiigga laga meero oo gacanta laga meero dialyska wax la yidhahdo gala ayaa jira marka waad arkaysaa marka cudur lagu dhashana waa jira cudurka lagu dhasho wuxuu ka mid yahay wax la yidhaahdo cyst kidneyahaas waxa waaye ma aragtay burooyin yaryar oo badan ayuu mataqaanaa waa dhaxal waa loo dhaxlaa ilmaha aabbaha ama awowaha ama ayeeyada ama hooyada ayaa qabta caruurtay u dhaxlaysaa waa dhaxal kaasoo laftigiisa haddaadan iska taxadarin markii marba marka xigta ciladiisa way badanaysaa cilad buu kugu samaynayaa ugu dambeyn ay kugu dhacaysaa inaad gasho dialyska waxa la yidhaahdo ama dhiiggaas ee gacanta laga meero kaadidii oo laga meero ayaad gelaysaa laftigiisa waa wax aad iyo aad u dhib badan oo aan fiicnayn marka kelida cudurkeeda cabdulaahi haddaan kuu sheegay aad buu u badan yahay kuwaas hadda aan soo sheegay waa kuwa oo ugu khatarsan oo dhibaato badan keeni kara oo keliyii shuuqin kara oo keliyii beeli kara ayaa jira marka saas ayay u kala dhigmaan aada u mahadsan tahay sida wanaagsan inaad nagu faahfaahisay waxaad sheegtay keliyii haddii ay baaba'aan oo kale imse bilood ayay qaadanaysaa in kelida ay baaba'do oo qofka uu ku ogaan karaa in kelidiisa ay baaba'do cabdulaahi su-aal aada iyo aada u wanaagsan ayaad i weydiinaysaa marka ugu horeysa cabdulaahi markii kelida baaba ay ku socoto way ku tusaysaayoo saameyn badan ay ku tusaysaa tilmaamo badan bay ku tusaysaa sidii aan sheegay waa jaraynaysaa qajajajajajacdaasaad leedahay oo qandho wax u egoo maaragta ilkahaasaas ku garaacaysaa mar allaala markii ay qaar u dhimanayo garaacaasaa ku imaanaya haddaadan dhakhtar u tegin aad iska indhatirto habeenkii intaad jarayso oo maalinkii haddana aad tiraahdo wallahi hadda tii xalay waaba karoonahay waa iska soconaya way sii soconaysaa waxay qaadanaysaa ilaa ay kelida ka baaba'do ilaa 3 wiig 4 wiig sheekada meel sare gaartay waa dhamaatay sidoo kale waxaa jira dad aan kaadida cisho karin oo 5 daqiiqaba mar xawaay galaya maxaa la dhahaa musqusha galaya xiriir meel leedahay cuduradan ku dhaca kaliya
cabdullaahi su-aashaan laftigeed waa su-aal cajiib ah aada iyo aada u muhiim u ah haa ciladaas waxbay la leedahay waxay ku xiran tahay ma rag baa mise ma dumar baa ragga hadday yihiin ma dad yar baa mise waa dad waaweyn marka hadday raggu yihiin dadka waaweyn waxaa jira cudur la yidhaahdo prostate aan ka hadli doono prostatitis wax la yidhaahdo ama prostate cancer wax la dhaho inuu geli karo cudurkaas hadduu galo hadde waa cilad weeyaan dhibaataa imaanaysa oo aad iyo aad u xoog badan maxaa dhacay dhe cudurkaas waa dilaa weeyaan cudurku wuu dilaya prostate cancer hadduu noqdo laakiin hadduu prostate hypertrophy wax la yidhaahdo uu qabo waxaa imaanaysa kaadida markastaaba inay googo'do oy googo'do oy googo'do oo dhibaato badan gaarsiisa marka saasay u kala baxaan waxaa kaloo jira dumarka markii loo soo ama ragga laftigiisa mar qaarkood waxaa jira wax la dhaho cystitis wax la yidhaahdo oo maaragta kaadi hayste infection hadduu galo laftigeed kaadi badan oo aan la reeban karin oo la ceshan karin ayaa kugu dhacaya laakiin xagga dumarka hadduu yahay waxaa u badan marka kaadida ayna ceshan karin infection baa u badan sidoo kale waxaa jira dadka ay kaadidu ku dhigto iyaguna xiriir mala leedahay cuduradan ku dhaca keliyaha cabdullaahi su-aashan laftigeed waa su-aal aada iyo aada cajiib u ah haa way la leedahay laba meel ayuu ka imaanayaa kaadidaas kugu dhegaysa mar sidaan sheegay dadka waaweyn maaragtay odayaasha waaweyn oo prostate hypertrophy ku dhaca oo kaadida ku haraysa oo ayna soo bixi karin prostateka wuxuu dhaqanayaa gacantaadiibuu la ekaanayaa markuu gacanta uu la ekaado ayuu wuxuu sameynayaa meeshii buu ciriirinayaa meeshii kaadida kasoo bixaysay ayuu riixayaa hadduu riixo kaadida ma soo bixi karto maalinkaasoo dhan idaasaa dhahaysaa soo bixi mayso marka tubaa la gelinayaa lagu soo saarayaa waa in mata la qalaa marka qalitaan la sameeyaa horta midna waa kaas mid kaleo waxaa jira ka labaad waxa waaye neerfaha waxaad ogaanaysaa cabdullaahiyow neerfo maskaxda ka imaanaya ayaa ku xiran xagga kaadida oo ku xiran xagga mataqaana saxarda oo ku xiran xagga laqitaanka marka waxaa la yidhaahdaa maaragtii sensible nerve baa la yidhaahdaa sensibleka nervekaas oo markaad wax laqaysana aada mataqaana laqayso haddii maskaxdaadii iyo laqitaanka isdiida waa riixriixoynaysaa waad ku saxanaysaa cuntada ma laqi kartid xagga kaadida markii aada maskaxdii ayna kuu sheegin kaadi inay ku hayso caadi waxa weeyaan qofka caadiga ah oo normalka ah markii uu kaadi ay qabato maskaxdii baa waxay leedahay war kaadi baa ku haysa orod suuliga tag suuligaa tegaysaa ama musqushi baa tegaysaa waad iska soo daadi baa lagu leeyahay hadda waad daadinaysaa waad furaysaa balalala waad soo xiranaysaa waad soo qaadanaysaa waa dhammaatay marka maskaxdii baa kuu sheegaysa mar waxaa dhacaysa cudur uu yahay laftigiis maskaxdii iyo meeshii kaadidii baa isdiidaya waad rabtaa maskaxdii day bay ku leedahay hoos ma soconayso ma ka soconayso marka laftigeeda reflector bladder wax la yidhaahdo ayaa jira oo ayna soconayn waa ka labaadoo kugu dhici karaa ka saddexaadoo kugu dhici kara waxa waaye marka xagga saxarada markii saxaro ku qabato maskaxdii baa waxay ku dhahaysaa saxaraa ku haysa orod musqusha tag waad fadhiisanaysaa markaad fadhiisato fur way ka baxaysaa waa dhammaaday saxarada waad soo tirtiranaysaa soo dhaqanaysaa waad ka soo baxaysaa haddii ay isdiidaan saxaradii iyo maskaxdii hadday isdiidaan maalinkaas oo dhan baad lahaanaysaa saxaradii ma baxayso hoosna way taagan tahay way isdiidayaan marka taasu lafteeda reflect baa la yidhaahdaa oo waxaa jira cudur waay laftigiisa cudur buu ka imaanayaa dawuu leeyahay aad iyo aad umahadsan tahay Dr. Cali Mucu Aweys ayuu kaasi ahaa oo nagala qayb galaya barnaamijka caafimaadka habeen walba oo kale ayaad ka daawataan telefishinka Somali Cable wuxuuna idinkaaga imaanayaa xarunta Dr. Cali Mucu Aweys uu ku leeyahay xaafadda Soomaalidu ee degtay Isli magaalada Nairobi gaar ahaan ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad ama iminkaba waxaad kala xiriiri kartaan telefoonka shaashada idinkaaga muuqda daawadayaal waxaan idin xasuusinaynaa in 24 saac oo isbitaalka Dr. Cali Mucu Aweys uu ka howlgalo uu shaqeyn doono haddii ay bakaraal noqdo toddobaadyada soo socda ama maalmaha soo socda waxaana lagu soo kordhiyay qalabyo ay ka mid yihiin sariirada sidoo kale waxaa jira qalabyo laga keenay wadanka Jarmalka oo Dr. Cali Mucu Aweys uu goor hore mar uu tagay wadanka Jarmalka uu ka keenay waa hagaag daawadayaal wili waxaad naga daawanaysaan barnaamijka caafimaadka waxaan idinku soo dhaweynaynaa qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta Dr. Cali Mucu Aweys International Health Center bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Mucu Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Isli gaar ahaan xaafadda 12 Street kasoo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego
sanadkan cusub wixii ka bacda in laga helayo Isli xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa. daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Macow Aweys oo ku taqasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Macow Aweys. Dr. Cali Macow Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka. haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda. waxaa daawadayaal soo noqod wanaagsan qaybihii dhexe barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysaan waxaana nagala qayb galaa toddobaad walba caawa oo kale dhaktarka caanka Dr. Cali Macow Aweys oo ku taqasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uur ku jirta dhakhtarka oo aad uga barateen inuu ka soo shaqeeyo wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka wuxuu ka howlgalaa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalidu ee degtay Isli wuxuuna ku leeyahay isbitaal lagu magacaabo International Health Center ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad ama iminkaba waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda. isbitaalka International Health Center waxaa lagu soo kordhiyay qalabyo ay ka mid yihiin sariiro cusub oo laga keenay wadanka Jarmalka iyo qalabyo kala duwan oo iminkaba yaala xarunta Dr. Cali Macow Aweys oo ka howlgala International Health Center. qaybihii hore barnaamijka caafimaadka day ku dhaaftay waxaa looga hadlayaa oo Dr. Cali Macow Aweys uu ka jawaabayaa su'aalo dhowr ah aan weydiinayno cudurrada ku dhaca kaliyaha. Doctor waxaan ku weydiinaynaa sidoo kale bararka ku yimaada lugaha saameyn ma ku leeyahay cudurradan ku dhaca kaliyaha. عبد الله سؤاشان لفتيجيد وعجيب آدي بعجيب وتاي ما شاء الله وايك جرتا لوجا بر هدي أركتو عبد الله يو سدح ميل أيو كإيمان كرا مر وكل ذا عاو أنك هاد لينو هدي أنت كل ذا إبر كتاعي وكل ذا إدواتك هايسو كإيمان كرا مرك حكته وحو كإيمان كرا وضناها haddii aad wadnaha cilad aad ka qabto wadnaha dhibaato uu qabo laftigiisa uu ka imaan karaa marka saddexaad wuxuu ka imaanayaa beerka haddii beerka laga hayana luga barar baa imaanaya marka luga bararkaas aad arkayso keliyaha saameyn bay ku leeyihiin way ka imaan karaan wayna lahaan karaan haddii kelidii ay gabto shaqadii inay qabato kaadidii inay dibadda u soo bixiso ay gabto lugaha barar imaanaya haddii markii dambana caloosha biyo soo gelaya sidoo kale waxaa jira ma jiraan burooyin ku dhaca kaliya ha way jiraan aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa Cabdullaahiyow way jiraan laba nooc oo mataqaana oo gala burooyin oo gala ayaa jira ama saddex nooc baan ku iraado ama afar baan ku iraado mid waxa weeye kii aan sheegayo cyst kidney la iraado midna kidney cyst la iraada midka cyst kidney la iraado waa hal buro oo hooyada kugu dhasho wax ku yeeli maayo waa buro biyood laakiin waxaa jira burubiyood badan oo mataqaana la yiraahdo cyst kidney oo khatar ah oo hadhowdii ay ku gelin karto ma aragtay in kaada laga meero haddii aan si fiican lagaaga baarin oo si fiican lagaaga daweyn labadaas waa mid waxaa jira cudur kale oo la yiraahdo nephrom oo gala mataqaana gala kelida gala laakiin cudurkaas waa cudur adag كانسر ويان هدي أفكي قلادك أورنتا عن كوشيغو وكانسر هدو كاسو كوغالو وأن سيد نقصة بدن كلي دبدا عن لو دغين علدو كوغارسي ككبسن ميسيد سيدا يوبدن يهين بقولكي بسغاشي سغال way ku dhintaan oo dilaya kaas waa buro oo kelida gasha waxa kale oo jira buro kale oo garab maarag kelida korkeeda pheochromocytome baa pheochromocytome ka wuxuu keenayaa markuu ku galo dhiigii baa kugu karaya dhiig kar aan la sheegi karin meel uu ka yimid meel uu socday meel aan la garanayn ayaa kugu dhacaya dhiigaas markuu karo ayaa mataqaana hadduu dhakhtarka aqoontiisa uu leeyahay markuu dhiiga ka cabiro oo arko 200 inaad marayso haddii uu caqligiisa siiyo oo aqoon uu leeyahay markiiba uu ka fiirinaya kelida ka baxsan mayso oo ka eegaya haddii laakiin asaga aqoon uu leeyahay daawada dhiikarku ku siinaya nabadii buu ku leeyahay kaas laakiin ugu dambeyn uu ku dilayaa laftigiisa pheochromocytome baa la yiraahdaa waa asaga laftiisa cudur yar ma aha sidoo kale waxaa jira doctor oo
jira dad hal keli ku dhasha qofkaasi hal keli ku dhasha bar walba ma in dhakhtarku uu la socdo xaaladiisa uu la socdaa mise sida dadka kale caadi ayuu u noolaan karaa cabdullaahi su-aashan laftigeeda waa cajiib aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa haddii hal keli aad ku dhalato ama laba keli aad ku dhalato wax ay ku kala gedisiin ma jiraan laakiin waxa kaliya aad u baahan tahay waa in taxadar labada keliyood laftooda wataan hadda ka hadlaynay maaragtay infectiona geli karo way dhimanaysaa ta kale hadan u dhiibaysaa laftigeeda way kaa dhiman kartaa laakiin taxadarka markaan leeyahay waxa waaye haddii aad dareento in ay keli ku xanuunayso haddii aad dareento in mataqaanaa ay kaadida ku gubayso haddii aad dareento inaad dhib aad ka qabto waa inaad sida u dhaqsaa badan dhakhtar u tagtaa haddaadan u tegin kelidaadii adiga waa israacaysaan waa dhimatay waa in keli lagu raadiya la gado ama meeritaan baad gelaysaa keli sida lagu helana ma fududa wax fudud ma aha taasu markii aan ka baxo waxaa jira cabdullaahiyow dad badanoo ma aragti kelida kaga jirta caloosha hoosa kaga jirta anba ugu jirinba meeshii laga rabayo ma aragti loogu agaa bidix iyo midig bay ku jiraan kelida marka laftigood oo waxaa jira dad hoostaas uu ka galo laftigood ma garan karaan halkaas ay xanuunayso buu ku leeyahay markaad fiirisidna kelidii baa meesha ku jirta marka laftigood haddii xanuun hoos ah ka dareento iyo haddaad kor ka dareentaba mar kastaba inaad iska ogaato ayaa wanaagsan annaga meeshaan jarmanka waxaanu samaynaa ilmaha markay dhashaan waxaa la fiiriyaa ultrasound scan waxa la yiraahdo waa kelidii baa la baarayaa meeshay saaran tahay meeshay fuusho markuuba bishii horeba waa la ogyahay ninkan kelidiisa hoose ku jirtaa inta uu ku korayna waa loo sheegayaa mar kasto kelida halkaasay kugu jirtaa halkan waxaad arkaysaa nin Soomaali intaas iska socday aad u sheegaysaa war kelidii baa hoos ku jirta sidee ay ugu jirtaa ma meeshay ka soo degtay maaba ku dhashay ninkan maba ogaba Soomaali way isaga socotaay oo waxay ka ogyihiin male meeshaas feer hadii laga dhufto kelida de waa dhabaatay marka maba ogaba taasna waa jirtaa okay kelida la bedelo kale qofka hadii keli kale lagu bedelo oo kelihiisi ahayn oo kelihiisi laga saaray ma ku noolaan karaa imisa waqti ayuu ku sii noolaan karaa cabdullaahi su-aasha laftigeed waa cajiib aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa keli haddii lagu bedelo horta wax kasta waxaan u sheegayaa Soomaali meel kasta ay joogtaba kelida adiga Ilaahay ku siiyay oo kugu abuuran mid ka wanaagsan ma jirto laakiin haddii laga fursan waayo oo keliya eber noqdaan oo laga fursan waayo ayaa mataqaanaa keli la soo gadaya waxaa jira cuduradan ma aragtay ee waa ka hadli doonaa rheumatismka loo yaqaan ama tufta ama riixda loo yaqaan ayaa waxa laftigooda keena keliyaha inay baaba'aan markay keliyaha baaba'aan waliba si dhaqso badan ay u baaba'ayaan maxaa dhacay difaaca jirkaaga ayaa kelida dilaya marka immune deficient ayaa la yiraahdaa disease in the kidney haddii taasoo ay kugu dhacdo laftigeed kelida way baaba'aysaa ama harabin sida loo celiyaa aad bay u adag tahay inkastoo haddii dhakhtar yaqaan haddii aad hesho la celin karo haddana still dhibaatay kaa gaaraysaa marka haddii kelida lagu bedelo dhibaatada ay leedahay waxa waaye kelidii waad ku noolaan kartaa ilaa waqtigii Ilaahay kugu talagalay noloshadaada inay jirto oo Ilaahay noloshadaada uu ku abuuray ajalkaaga waqti uu ku ogyahay waad ku noolaanaysaa laakiin waxay noqonaysaa mar kasta daawo inaad qaadato daawo la'aan ma socon kartid daawadaas waa mar kasta maalin kasta inaad laqdaa ood is ogaataa haddii daawadaas aad daysid dhibaataa ku imaanaysa marka saa daraadeed taadii adiga Ilaahay ku siiyay aad haysato ka taxadar wax ka wanaagsan ma laha war caafimaadka wax la siisan kara ma laha marka fursadaan aan rabaa waliba inaan ka sii faa'iideysto Cabdullaahiyow umad badan oo waxaa jirta dhakhtar ay u tagaan dhakhtarka baara daawo siiya daawada markii la siiyo marka ummadda Soomaali problemkeedu waxa uu badan yahay kulli waa wada taqaatiir nin walba wuxuu rabaa inuu sheego inuu dhakhtar iska dhigo markaas wuxuu leeyahay war damaya u tagtay dhakhtarkaas u tagtay war daawadu soo siiyo war arad khashinka isaga shub khashin qofka ku shub daawadaas waxa ku tarasiyo ku dilin war yaa muslim adiga ummadan waxa waaye oo afkooda aan laga amaan helayn aflagaadadooda aad u badan tahay war ninkan dhakhtarka waqti kastaba ha barta ama 2 sano ha barta ama 10 sano ha bartee waa nin wax soo bartay oo wax ka yaqaan bal si jansi qaado daawadaada fiiri bal aad ku caafimaad haddii aad ku caafimaadin dhakhtar kale u tag qasab maaha ninkan inaad u tagto ama asaga aad la joogto qasab maaha dhakhaatiirtu way badan yihiin waxaad leedahay ma aragtay optionna badan baad leedahay u tag dhakhtar kale laakiin aflagaado inta la aflagaadeeyo adigana ma dhaqan dhibaato lagu geysto daawadaadii oo lacag aad kala soo baxday aad iska tuurto adigana caafimaadkaagii uu dib u dhaco dhibaato kale kaa soo gaartay marka taasaa mar kastaba hadda ayaamahan dhagayga ku dhacaya aan maqlayaa marka wax wanaagsan ma aha
waan rajeynaya inay taladaasi ay qaadan doonaan shacabka Soomaaliyeed ee naga daawanaya Somali Cable. sidoo kale waxaan ku weydiinayaa doctor, waxaa jira kaliyaha haddii ay istaagaan oo shaqadii ay gabaan jirka intiisa kale saameyn ku yeelan karaa? su-aashan laftigeed waa cajiib, su-aal aad u wanaagsan. haa, way ku yeelan karaan. maxaa dhacay? maxaad ogaanaysaa Cabdulaahiyow, annaga waxaan habeen maalin cunayno bariiskii iyo baastada iyo muufada aan daldalayno waa sun weeyaan. suntiina laba meel bay ka baxaysaa. annageena jirkaynu wuu u baahan yahayo noloshadaadi dhan bay ku xidhan tahay. cuntadii markaad cunto, cuntadan ka wadaa, markaad cunto oo caloosha ay gasho waa la shiidayaa. marka la shiido waa la kala saarayaa. markii la kala saaro wixii jirka u baahanna dib baa loo ceshanayaa, wixii jirka aan u baahnayna kelida iyo saxrada ay ku baxayaan. marka haddii kelidii suntii ay bixinayso, dibadda ay u bixinayso, kaadidii ay bixinayso oo ay dib u noqoto, haddee jirkaaga isbedel baa imaanaya. jareys baad bilaabaysaa, suxsuuxid baad bilaabaysaa, ma socon karaysa. waxa waaye waa sumoobaysaa, adoo nool baad sumoobaysaa, sun baa ku gelaya. maxaa dhacay? suntii kaa bixi mayso. marka wadnahay wax gaarsiinaysaa, keliyahay beerkay wax gaarsiinaysaa, sambabkay wax gaarsiinaysaa, jirkaaga dhan, maskaxdaadii bay wax gaarsiinaysaa, indhahaagii bay wax gaarsiinaysaa, araggaaga yaraanaya. marka saad maqlayso wax jirkaaga dhan baa isbedelaya. marka haddaad ma sumowdo oo sun, haddii sun lagu siiyo meeshaa ku dhimanaysaa. marka taasna way ku dilaysaa dee dabcan. aad iyo aad u mahadsantahay. ugu dambeyntii, maxaa tala caafimaad aad siin lahayd dadweynaha Soomaaliyeed ee naga daawanaya telefishinka Somali Cable? sideese looga hortagi karaa cudurradan ku dhaca keliyaha? Cabdulaahi, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. reer Somali Cable shaqaalaha iyo madaxdeedina mar kale iyo mar saddexaad waan mahadcelinayaa. marka waxaan leeyahay Soomaaliyey, meel kasta ay joogtaba, reer Kenya ama reer dibadda ama meel kasta ay joogaan, si fiican bay i yaqaanaan. waxaan leeyahay war caafimaadka lagu dadaalo. haddii aad aragto kaadida inay ku gubayso, haddii aad aragto labadaas dhinac keliyaha kor ay ku xanuunayaan, dhakhtar u tag. kaadida lagaa baarayaa, wax yaraa lagaa baarayaa, kaadida keliyaha maaragtay dhiigga la fiirinayaa. haddii la ogaado inay meesha ay cudur ku jiraan, war markiiba daawa lagaa siinayaa. week gudaheed ama 10 ber gudaheed ayaa wax dhanba dibadda loo dhigayaa. marka ha yaraysanin. caafimaadka wax la heli kara maaha, caafimaadka wax lacag la siisan kara ma aha. ninka dhakhtarka waa dhakhtar, dhakhtarnimuu bartay, waxbuu soo bartay, waa nin wax bartay. hadduu Soomaali yahayna Soomaali buu u bartay, hadduu ajnabi yahayna ajnabi iyo Soomaali buu wax u bartay. ninka dhakhtarka waa dhakhtar, maaha qabiilna ma aha, wax kalena mataqaan nooc kale ma aha, cadaan ma aha, madow ma aha. ninka dhakhtarka mar kastaaba wuxuu u taagan yahay ummaddaas maaragtay inuu wax u qabsado. marka waxaad yeelaysaan caafimaadka ha lagu dadaalo. aad iyo aad u mahadsan tahay. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal. kaasina wuxuu ahaa Dr. Cali Macow Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud, gaar ahaan cudurrada uurka jirta, oo ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka. sidaad ugu barateenba, iminka wuxuu ka howlgalaa isbitaal uu ku leeyahay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii, gaar ahaan ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad. ama iminkaba waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaga muuqda. waxaan idin xasuusinaynaa daawadayaal in isbitaalka International Health Center uu shaqeyn doono 24 saac maalmaha soo socda haddii ay bakar la noqdo. waxaana lagu soo kordhiyay qalab ay ka mid yihiin iyo qalabyo kala duwan oo ku saabsan caafimaadka. waxaana Dr. Cali Macow Aweys goor sii horeyso uu gaaray wadanka Jarmalka uu ka keenay, iyadoo aad soo gaari kartid isbitaalka waqti walbana aad heli kartid Dr. Cali Macow Aweys. iminkaba waxaad kala xiriiri kartaa haddii aad u baahan tahay dhakhtarka taleefanka shaashada idinkaga muuqda. guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii caafimaadka oo caawa aan uga hadlayno cudurrada ku dhaca keliyaha. dhanka farsamada iyo kaamirada wuxuu ahaa saaxiibkay Cabdinaasir Macalim, anigoo Cabdulaahi Axmed Cali idila socodsiinayay. Dr. Cali Macow Aweys ayaana tala caafimaad wuxuu siinayay dadweynaha Soomaaliyeed ee naga daawanaya telefishinka Somali Cable. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii. dib intaan u kulmi doono toddobaadka dambe, waxaan idinku soo dhaweynaynaa qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta Dr. Cali Macow Aweys International Health Center. ama iminkaba waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaga muuqda. bishaaro bishaaro bishaaro. haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid? caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Macow Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii, gaar ahaan xaafadda 12 Street kasoo horjeedka Hotel Moonlight. bismillaahi raxmaani raxiim. dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa. ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa. daryeel
dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Macow Aweys oo ku taqasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Macow Aweys. Dr. Cali Macow Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka. haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda.